بيكي ayaa falka ka baxay ha dadkii ka koreeyay waxa ka baxday xabdayar haddaad mar walba hees dhageysato waxa laga yaabaa qalbigu inuu wax ku noqdo culimada dhageysta baarudi biiga horta sida caadiga Facebook mu isticmaali jirin bari dawid bu Facebook furtay isaga afkiisa noo sheegay iyo mismaarka heesa macaan inaad ka rogto كرر هذا صار محمد مبارك يا محمد مبارك تعال إلى هذا الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك وحين تيم جامع فلوكس. Welcome back to another video. كسر هذا فيديو عصب. فضل هذا نقول عصب تاي سبسكرايب نو صار فيديو ونا لايك صار لو ذاك أصحابته هذا ناديكم قنيو. ما أنت وحين كهذا لدونا برنامج كاسو آدم إلا حال السوشيال ميديا كواركي و محمد بيكي أو فنكي كب حيث عوانك بكوار كيسان المركب حين يوجد دونا دور قف أو وريهنا أو ما دام يوتيوب كده تقصو سيدا وشيء دونه درس العبدي أو إسقنا دعوضي أو كسو قري محمد بيكي أيا فنك كب حي محاكة كتير مركا يوتيوب كيسيدو يهيب ينو شيء يوتيوب وقعد كسر يوتيوب وقف قاعد يقرينه الله بعد من يقول الله فضل هذا نقول عصبتي سبسكرايب نو صار فيديو قنا لايك صار هدي أتكيشي maanta waxaan noo hayaa magaranaysaa adigu waa iska yaro war oo kale video kan waxaan yiri war macnaheedu marka dadku wax la socodsiinayo war un baro garaama marka inaad maqshin mooyaane PK ayaa fanka ka baxay arti PK ayaa fanka ka baxay markaad maqshin waa yar yaabasa dadkii ka koreeyay waxa ka baxday xabdayar manaa fanaaniin yara badan baa fanka ka soo yara baxday magaranaysaa arti fanaaniin badan baa fanka ka soo yara baxday ku soo cadri fi lacab ku wadata marka meel badan bay dadku wax ku soo qoray imka tusaalahan oo kale dadku inay finiyi waxa garanaysaa aw jojo qadaba xageen soo diiday imka waxaan ku qoray YouTube ku qoray PK oo fanka baxay banaade maadaama yar rabiyaan idea dadku ay aaminsan yihiin yar fahmo aan ku qoran PK oo fanka baxay waxa arka ma garanaysaa Maxamed PK oo fanka baxaya iyo sababta ka dambeysay hadana qofka waxaan ku soo qoray intuu mas iyo xabaalo iyo sheekhi wax soo dhigay Maxamed PK oo qisan naxlina kadib fanka ka baxay Sheekh Mustafa oo ku farxay waxaan wali agiibinay fiidiyowga ma garanaysaa Soomaalida waxay moodaan qaar wixii xumaan iyo wanaag ma hayno wax kasta fuse ki galo ma ee kadan waxa soo dhigay kitaab Sheekh Mustafa hadana waxa leeyahay finaanka weyn ee Maxamed Saciid Biiko oo sheegay inuu fan ka baxay hadana waxa soo dhigay kitaab nimcan hilaa BK wadagdag finaanka Maxamed Biiko oo fan ka baxay iyo farxiye kabayare oo war culus ka soo saartay marka qofka duu fan ka baxay iyo hadii aanu ka bixin isaga u taala laakiin in dadka youtuberada ah ay Soomaalida xumaanta iyo ka duwana xumaanta ay ka daayaan ba fiican iyo dadka xumaanta wax la faafinayo de wax kasta yaan wax laga deeyin youtuber badan baa ugu soo qoray Maxamed Biiko oo fanka ka baxay hebel kale muxuu uga baxay iyo qisadii oo fanka uga baxay aniga laftirkaygu waan yara eegay aan Facebook eegay waxa ii soo baxay aan Facebook eegay waxa ii soo baxay Sheekh Maxamed Biiko درتي maxay uu fanka uga baxay ku waani adu waxyaabo saasa video-ga waa kan ila daawada kuugu baaqaya magac baan ku hayaa waxaan ka rabaa codka macaan xanjarada Ilaahay niqmadu ku galiyay iyo mismaarka heesa macaan inaad ka rogto karrago hadana saar quraanka ku bedel kun daaciyan ila Allah daaci baaqaan noqo تعال الى المنبر halkan nooga khudbadee تعال الى المحراب محرابka quraanka macaan nagu tuki sida wiilashaan ku sheegay ragga odayaasha hore haddaad sidaas samayso magac qurux badan baan ku hayaa BK Maxamed BK baan ka bedelay waxaan ku leeyahay Maxamed Mubaarak ya Maxamed Mubaarak تعال الى هذا الاسم الجميل magaca qurux badan la dooro u kaalay adeer baan ku hay wiil yar baatay waayaha adduunyada waan kaaga soo horeeyay adiga iyo inta calanka u sido ee dhalinyarada geeska Soomaaliyeed iyo qayrkeed قال علنك الرد أو قاد علنك التوحيدك قال يحبر قال قبلة إله يوجهه قبلة الرجال قلبك يهود يا نصارى كو الدربان هذا كو طبي
ee lugaha isugu kaa dhuftay ee kaa caqli badiyey ee ku dhahda waxa lagu hormara mataqaan alla waxa loogu dhammaado dee waxay nagu odhan doonaan maraykanku idinka saanad iyo dhaqaalo badane ilaahay baa jecel oo ilaahay idinka dhow nagu odhan doonaan haddaynu saa ka aamuso sooma. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? YouTube ko qaatay ku soo YouTube qof gaar gareeyo laakiin ka hor intaan aan YouTube ka ku arkin waxaan ku arkay Facebook waxyaabo meelaha lagu soo qoray magaranaysa waa isku tiin day page badan oo dadku iska sameysteen bay jiro iska qortaan PK Abdul Umar Rashid Tisabdi Shadi Sharaf najmi shad ma wax walba wad arkaysaa malaha dadku iska qortaan kadib waxay doonaan iska soo qoraan magaranaysa taaba arkay page Dirsli Abdi oo in badan oo flow badan haysta Dirsli Abdi ma adiga miya Facebook page ma isticmaashinayaan runta noo sheeg hada Facebook beeline flow kala wada noqdaniyo sawiraantaadu way yaalaan adiga ma soo ma marka waxaan arkay anigu isaga oo soo dhigay Facebook leeyahay oo wuxuu lahaade bismillaahi salaamu calaykum dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waa salaamaya inta kadib waxaan rabaa inaan idin cadeeyo anigoo ah Maxamed Saciid BK kuna jiray fanka muddo dhowr iyo 10 sano ah qoraalka ma garanaya BK sax ma soo qorayo wada Dirsli Abdi BK saaxiibin waa runtii BK horta sida caadiga Facebook mu isticmaali jirin bari dawid bu Facebook furtay BK hadaladiisa uu ku hadlo iyo qoraalkani macnaha isma galayaan aqrigal ma ahaba waxaan markaa isaga ma aha saan uma hadlayba imka u fiirso wuxuu leeyahay xagan in maanta oo bishu tahay 18 October 2022 inaan ka baxay gebi ahaanba fanka iyo suugaanta halkaasna fanka waa laga bixi karaa waana la soo galaa insha Allah Ilaahay haduu wadada toosan ku hanuuniyayna insha Allah codkiisa macana wuxuu faa'iideyn doonaa xagga wanaagsan buu uga faa'iideysan doonaa walaalihiisa ana ugu faa'iideyn doonaa quraanka kariimka uu kaga faa'iideysan doonaa waxaan isaga ma marka waan yiri fahay marka akhriibo aan gartay waxaan nifaantay kadibna iska dhaafiyay haddana waxaan arkay mid wariyaa oo haddana soo dhigay marka kama yar fiisa sababtoo ah wariyaasha marka qaar dad bay way sheegaan laakiin sidee huna way sheegaan garanaysaa runtii bal ninka wariyaha bay leegi doonaa Dirsli Abdi uu leeyahay wariyaha wax soo dhigay adama waxaan hadda sheegay dadkiina adeer naga dhaafa dadkii wargalka ee waxa wanaagsan laga sugiyo wax ku meeraysanaysan waxyaabo war adduunkan dadka wax ka dhacay soo bandhig wariyaal baatiin mara PKP chao ku qoran tahay waxaan ka mid beeshin kale sababtoo aan garanaa in meelaha been ku soo qoraan marka qofka baaydi malaayiinka fanka Maxamed BK ayaa u muuqda mid soo afjaraya waayihiisa masraxyada heesaha BK ayaa maalinta Arbacada ah warbaahinta hor iman doona wuxuuna ka war iyo waa Soomaaliga ka war iyo wacaal waramaya dhacdooyin iyo qisas imri qaadasho in kana ma aamin yaanu sababtoo ah dhacdooyin ku dhacaan mareynaya garanaysaa laakiin waa arki doonaa hadduu mar soo fariisanay meel soo fariisanaya waa arki doonaa wuxuu oran doonaa magaranaysaa laakiin mid waxa weeyaan inuu ka baxay marka xanuunsan noqon dhakay YouTube-ga qofaan meel ka soo qoray haddii uu BK ka baxay xamdeena ka baxday maxaa dad badan ay ka baxeen de funky yaa looga tagay Michelle Boy والله سبحان الله تعالى عيني مد بقى له عركي مال كسو قري isla wala baa loo ragay xamdeeyar haday ka baxay fanka cabdaanna uu ka baxay waa ku soo sheegay basharba boy baa looga tagay shantaar bishii shiidku keen bahayd basharba boy waa fanaan qof kasta fanka wuxuu ku joogaa yaa la isku mashquulin fanaaninka waaweynaa baa fanaanintan Ilaahay u naxariistay fanka ka dhaqaaqay yaa looga tashan buu leeyahay muuli Chinese way busharo boy ka halkaas buuli waxa soo kala bay anu qoflayn qof ku cilinayo meel uu maayo garanaysaa marka hadii dad badan ka baxaan fanka kulli dad badan ku soo biiray garanaysaa wali ku soo biiray bas uu timaamo inta dhalinyarada fanka ku jirtay imika YouTuber oo buu heesay ama waa uu soo heesay Maxamed BK shalay fanka marka uu soo galay dad badan ma garanay ma la garanay 2010kii buu 10 sano sheegay laakiin barigu soo baxay waa 2013kii aan u maleynaya dadku caadi u barteen 13kii 12kii dadku ma bay garanayn waxaan soo galay fanka wuxuu kula jiray ma jiraan maalinta oran waan ka baxay qofan meelaha ka heesay buu ahaa laakiin qof kasta maalin buu fanka soo galay maalin buu caan noqdaa fanaaniin yar cusub soo baxay mana fanka lagu soo biiraya marka aan ma yaab dadka waaweyn ka baxay sababta wax bay soo fahmayaan qof markuu weynaado wax buu fahmayaa marka adu fiidyashan meesha weeyaan oo dhan mid baa ka dhex doortay kan waxa weeyaan mid mas uu meesha yaalo oo hal daqiiqa wuxuu yiri Maxamed BK oo qisan naxdin leh kadib fanka ka baxay Sheekh Mustafa oo ku farxay
What the fuck? Stop playing. What the fuck? Stop playing. What the fuck is that? تلفها سو دحاج tirisla cabdi video marka duubaysa de inaad naga dhaaf telefoon wixii wadi laawaysaa kol baadana soo in mirinota haadu muhiimad waxa weeyaan video wada dhaco sababtoo ah video waa good kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada sharafta badan ee ku xiran bartaan YouTube ku leenahay ee Madala Media fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar anu waa ka YouTube ka soo dhigo wajigooda laakiin xogta ka Allah ma kulli xogta ويجي يوتيوبر واوين انا قلتبين او حق دبا كهادلده wax jira laakiin badanaa youtuberada intay wax soo dhigaan wuxuu iska duuba badanaa run sheegay magaranaysa laakiin bal wiilka dhigaysan wuxuu leeyahay imka muuqaalka like sar leegtu muhiim bay u tahay channelka sidoo kale leegtu wax ka qayb qaadanaysa in barnaamijka dardar galino waxaan ku saari doonaa tu video-gan muhiim noqdo wax la fahmi karo duuyay wad oo dhiirigelin bay noo tahay hadaba adoo raali fadlan muuqaalka leeg noo saar October 2020 waxay noqotay bil barakeysan waxaana fanka Soomaalida ka baxay fanaaniin badan oo fanka Soomaalida qayb lixaad la ka qaadan jiray balse caawa waxa fankay ka galbaday fanaan markuu heesaha qaadayo xaadu ay dhaqaaqi jirtay shimbiruhuna ay adeyn jireen fadlan hadii ay heestii doonto fanaanku doormaano ay xadaada kicisay comment igu soo fadlan arrintii halka dirisla sheegay fadlan hadii hees oo daawanaya xadaadu saa u kacday ya commentiga noogu soo qor anaga laftirkayga ilaahay ku dhaarshay hadii hees xadaada kicisay mana aragtay adoo hees dhigaysan xadaadu kacday comment igu soo qor waxa tiraada anoo heesta dhigaysanay ay xadaadu kacdo waa jaabiba waa Maxamed Saciid Biike Sheekh Maxamed oo dhowr bil ka hor la kulmay muftiga weyn Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil ayaa ugu dambeyn go'aansaday inuu ka dago doontii uu muddada badan saarnaa hadaba Axmed Biif oo saaxiib dhow ahaayeen isla markaasna ay kamid ahaayeen fanaaniintii 2015 ilaa wixii ka horeeyay uu shidnaa fanka Soomaalida ayaa arinkaas xaqiijiyay sidoo kale Nimcaan Hilaac ayaa bartiisa Facebook soo dhigay qoraal u dhignaa sida tan isagoo yiri Axmed Biike waxaan ku page ay tigsaaran tahay soo ah maran helaa hadal heeynu ugu been buu sheegay okay waxa been macaan Nimcaan Hilaac taan eegay imka Facebook-kiisa kan ay tig tusaaran tahay waxaan kuma jiraba waxaan ma jiraba ha ayaa caawa galbaday sidoo kale fanaaniin badan oo aan ka xusi karo Cabdihani Xaashi Cabdulaahi Xamdayr iyo fanaankii raabka ee tahliil yare ayaa isaguna fanka ka huleelay agta saka saarnaa garanaysaa sababtoo ah beenis ka sheegay laakiin run waa sheegaysi tahliil yare wiilkaan waa arkay isagoo leh wanka baxay fankii marka laakiin waxay ila jeclaan lahaa dadku maxay dareemayaan imika fan ku jira markay waxyaabaan maqlaan in markay maqlaan PK ba ka baxay qofkaas ba ka baxay maxay dareemayaan taa way ila jeclaan ogaado maxay dareemayaan dadku soo Soomaalida imika aad qofid soo fariisinaa maanta YouTube news iska day inkastoo dhacay taas iska mid ah ma la iska mid ah kulli wax weeyaan de adu wiil ma arkin YouTube iska deena YouTube nimada marka waxaan dareemaa talo hebel hortane oo wali ma arkin YouTube ka baxay ayaan rabaa YouTube-kii waa ka baxay waa iska xiray anigu YouTube ka baxay waa iska xiray waa iska tagay may waa ku soo noqdinayo kama bixin YouTube-kii tan gaarka qof saas oo kala aday aniga ma fiirin goolaa tan waxan meelaha la soo dhigo oo dhan wili aniga idin ma oranayo warun anu kuma oran imika ba dirisa kuma oran biika ka baxay fanka okay aan ku sheegay anu kuma oran fiike anu kuma oran biika ka baxay laakiin waa waxay dadku hadlayaan waxaan sugayaa maalinta la oran doono dirisla cabdi YouTube-kii ka baxay oo qisal la tusay taasina way soo soctaa maallow waa arki doontaa marka aad ugu mahadsan tahay shay video daawatan waa inuu video daba dunaa ilaa khayr ma nijiniya marka aan runta idin sheego Maxamed Biike fanka ka bixin waxa la sheegayaana waa been والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل هذا نوع سبسكرايب نصار فيديو جنين تاسين كسو جبجبيننا دمانتين باي باي